ninka ayaa isagoo xishoonaya galay dukaan lagu iibiyo dharka dumarka si uu hadiyad ugu soo iibiyo Mika. laakiin aad buu u wareersanaa mana uu garanayn sida uu sharxo waxa uu doonayo. shaqaalihii dukaanka ayaa si diiran u soo dhaweeyey, balse hadalladeedii iyo su'aalaheedii ayaa sii kordhiyey jahwareerkiisa, taasoo ku kaliftay inuu si degdeg ah uga baxo dukaanka. 2 maalmood ka hor intii lagu jiray hawl samata bixin ah, Ole ayaa badbaadinayay Mika. intii hawshu socotay, Mika ayaa si degdeg ah uga caawisay xaalad adag, taasoo ka dhigtay inay si gaar ah isu xusuustaan. markii dambe Ole wuxuu go'aansaday inuu Mika hadiyad waxaad tahay mid cafis badan, cafintana waad jeceshahay. ilaahayow qofkii fallow isoo dhaha muuqaalkana faafiya, komentigana ku soo qora magacyada alle mid u geeyo si uu mar kale ula kulmo. wuxuu ku yidhi inay furto marka ay guriga tagto. kadibna isagoo geesinimo is urursaday ayuu ku casuumay casho. si kastaba ha ahaatee, isagoo ka baqaya in la diido ayuu hadalkii dhameeyey isaga oo aan jawaabteeda sugin. isla waqtigaas waxaa soo baxay hawl degdeg ah oo booliiska loo diray. maadaama uu ahaa sarkaal ka tirsan ciidamada gaarka, Ole wuxuu ku qasbanaaday inuu si degdeg ah ugu laabto shaqadiisa. Mika oo iyaduna ku mashquulsan shaqadeeda waxay ilowday qorshihii cashada. markii dambe saaxiibadeed ayaa arkay hadiyaddii Ole, taasoo ka dhigtay inay xishoodo oo wareerto. waxay isku dayday inay telefoon kula xiriirto Ole si ay wax uga weydiiso hadiyadda, balse waqtigaas wuxuu ku jiray hawlgalkiisii shaqo, mana uu awoodin inuu ka jawaabo. habeen dambe markii hawlgalkii dhamaaday, Ole ayaa xusuustay ballantii uu la lahaa Mika. isagoo ka shalaynaya inuu ka baaqday ayuu magaalada ka raadiyey ilaa uu ku arkay iyadoo baaskiil ku soo laabanaysa gurigeeda. wuxuu si aamusnaan ah uga daba socday si uu u hubiyo inay nabad qabto. markii uu arkay inay aad u daalan tahay, ayuu u soo bandhigay inuu guriga geeyo. Mika way aqbashay, waxayna fuushay gaarigiisa. intii ay safarka ku jireen, daalkii badnaa awgiis ayay hurdo ku dhacday. markii ay gurigeeda gaadheen, Ole ma jeclayn inuu hurdada ka kiciyo. ugu dambayn markii ay toostay sidii caadadiisu ahayd, ayuu iska dhigay qof adag oo ku canaantay inay taxadar badan yeelato. taas ayaa mar kale dood yar dhex dhigtay labadooda. Mika iyadoo xanaaqsan ayay guriga kor ugu baxday. hase yeeshee Ole markiiba ma uu tegin. wuxuu sugay ilaa uu arkay iftiinka qolka Mika oo shidan, markaas ayuu si tartiib ah uga dhaqaaqay. Mika iyadoo daaqada ka eegaysa nalalka gaarigiisa oo sii fogaanaya, waxay qalbigeeda ka dareentay farxad iyo diiranaan aanay hore u dareemin. gabar afka ka xumbaynaysa ayaa si degdeg ah loo geeyey isbitaalka. waxaa la sheegay inay jaranjaro ka soo dhacday, balse Mika waxay markiiba dareentay in arrintu sidaas ka duwan tahay. markii su'aalo la weydiiyey, aabaheed ayaa qirtay in gabadhu si khalad ah sunta cayayaanka ugu malaysay cabitaan oo ay cabtay. dhakhaatiirtu markii ay xaqiiqda ogaadeen, waxay isla markiiba u qaadeen qolka gargaarka degdega ah. inkastoo daaweyn degdeg ah la siiyey, xaaladeedu weli way halis ahayd. suntii ay cabtay waxay ahayd mid aad u xooggan, waxaana loo baahday qadar badan oo daawada atropine ah si looga hortago saamaynta sunta. nasiib darro, kaydkii isbitaalka yaalay kuma filnayn, waxaana loo baahday in dawooyin dheeraad ah laga soo raro isbitaallo kale. isla waqtigaas waxaa bilowday saxmad xooggan oo gaadiid ah, taasoo sii adkaysay xaaladda. iyadoo cadaadisku badan yahay, Mika degganaanteedii ma lumin. waxay fadhiisatay iyadoo gacanteeda ku furaysa dhalooyinka daawada. mid kasta wuxuu watay qadar yar oo daawo ah, sidaas darteed shaqadu waxay ahayd mid aad u badan. markii ay asxaabteedu arkeen dadaalkeeda, dhammaantood waxay si iskood ah ugu soo biireen hawsha. qof walba wuxuu isku dayay inuu badbaadiyo gabadha yar. si kastaba ha ahaatee, xaaladda gabadhu si weyn uma soo hagaagin. dhakhaatiirtu waxay ka cabsi qabeen in beerkeedu shaqada joojiyo haddii xaaladdu sii xumaato. xilligaas ayuu Keele yimid si uu Mika u soo booqdo. markii loo sharxay waxa socda, wuxuu si degdeg ah ula xiriiray xarunta taliska, isagoo codsaday in ciidamada booliisku ka qayb qaataan soo gudbinta daawooyinka. dibadda, booliisku waxay la tartamayeen waqtiga. gudaha isbitaalkana, shaqaalaha caafimaadku daqiiqad nasasho ma aysan helin. sanduuqyada daawadu waxay miiska ugu urureen buur yar oo kale. aabbaha gabadhu wuxuu fadhiistay dabaqa isagoo baryaya Ilaahay. qof walba wuxuu la dagaalamayay geerida. ugu dambayn, abaarihii 5 subaxnimo, war wanaagsan ayaa ka soo baxay qaybta bukaanada. calaamadihii caafimaad ee gabadha ayaa soo hagaagay, waxaana si tartiib ah caadi ugu soo noqonayay dhammaan natiijooyinkeedii caafimaad. markii warkaasi la maqlay, farxad ayaa qabsatay dhammaan dadkii hawsha ku jiray. mucjisadu si iskood ah uma imaan, waxaa sameeyey wada shaqaynta dhakhaatiirta iyo booliiska. Mika oo aad u faraxsan ayaa ugu mahadcelisay Keeley taageeradii iyo gurmadkii waqtiga ku habboonaa. maalintii xigtay, isbitaalku wuxuu abaalmarin iyo ammaan u sameeyey dhammaan dadkii ka qayb qaatay badbaadinta gabadha. inkastoo xaaladeedu soo hagaagtay, qarashaadka daaweynta dambe ayaa culays weyn ku noqday qoyskeeda saboolka ah. Mika iyaduna ma ahayn qof dhaqaale badan haysta, balse ma aysan aqbali karin in gabadhu daawada uga harto lacag la'aan darteed. iyadoo aan laba labayn, waxay aabaheed siisay lacag u dhiganta kirada 1 sano. taas kadib, Mika ma aysan awoodin inay sii degto meel u dhow isbitaalka. iyadoo aan cidna wax ka amaahanayn, waxay muddo ku nooleed qolka nasashada ee isbitaalka. maalin maalmaha ka mid ah, saaxiibteed ayaa u sheegtay in qof ay taqaanay uu guri kiraynayo. labadooduba waxay si degdeg ah u tageen si ay u soo arkaan. Mika aad ayay u jeclaatay guriga, balse kiradiisu waxay ula muuqatay mid qaali ah. saaxiibteed ayaa la hadashay mulkiilaha, waxaana ugu dambayn kirada loo dhimay kala bar. shuruudaha keliya ee la saaray waxay ahaayeen in aysan furin qolka daraasadda iyo inay nadaafadda si fiican u ilaaliso. Mika si farxad leh ayay ku aqbashay heshiiska. waxa keliya ee ay la yaabtay wuxuu ahaa in mulkiiluhu ahaa qof qarsoon oo aan si toos ah loo arkin. xitaa kirada waxa uga soo ururin jiray qof kale. wax yar kadib, Mika waxay u guurtay gurigeeda cusub. maalin kale kadib hawl shaqo, Keeley wuxuu saaxiibkiis ku amray inuu gaariga ku wareejiyo xaafad gaar ah dhowr jeer. ugu dambayn, waxay arkeen qofkii uu doonayay inuu la kulmo. Keeley ayaa gaariga ka degay oo la hadlay. intii ay wada hadlayeen, Mika waxay sheegtay inay dhawaan u guurtay dhisme cusub. markii magaca dhismaha la sheegay, saaxiibkii Keeley wuxuu ku sigtay inuu si kama ah u sheego sir qarsoon. isla markiiba Keeley ayaa ka hor istaagay. Mika lafteedu way ka naxday sida ay wax u dhaceen, iyadoo yaaban waxa sirta weyn ee la qarinayo ay noqon karto. gabadhu si lama filaan ah ayay u ogaatay in gurigii ay dhawaan qiimo jaban ku kiraysatay uu leeyahay arrin qarsoon. waxay dareentay in dhaqdhaqaaq kasta oo ay samayso la daba joogo ama la ogaanayo. Mika ayaa markiiba wacday saaxiibteed ugu dhow si ay ula wadaagto welwelkeeda. waxay ka shakiday in mulkiilaha gurigu yahay nin si qarsoodi ah ula socda, sababtoo ah mar kasta oo ay wax u baahato, alaabtaas ayaa si yaab leh uga soo muuqanaysay gurigeeda. markii hore, waxay shaqaale ay wada shaqeeyaan u sheegtay inay u baahan tahay gogol dabaq iyo qalab dharka lagu uumiyo. wax yar kadib, labadii shayba waxay uga soo muuqdeen guriga. maalin kale ayay sheegtay in qoorteedu xanuunayso, maalintii xigtayna waxay heshay qalab qoorta lagu duugo. xitaa markii makiinadii bariiska ay ka xumaatay, mid cusub ayaa loo keenay. bilowgii, Mika waxay u malaynaysay in mulkiiluhu yahay qof naxariis badan. laakiin markii ay gurigeeda ka heshay maaskarooyin wejiga lagu xirto iyadoo aan cidna uga sheekin, waxay bilowday inay ka shakido wax aan caadi ahayn. dhacdooyinkan isdaba jooga ah ayaa cabsi geliyey.
saaxiibadeed waxay u maleeyeen in qof si kalsoodi ah ula socdo balse Mika way diiday fikirkaas sababtoo ah maaskarooyinka waxay ka hadashay oo keliya iyadoo joogta isbitaalka saaxiibteed ayaa markaas ku qancisay in laga yaabo inuu jiro nin jecel oo doonaya inuu dhibaatadeeda xalliyo si uu qalbigeeda u helo sidaas darteed Mika waxay go'aansatay inay arrinta si toos ah u caddayso maalintii xigtay markii ay shaqada timid nin ay wada shaqeeyaan ayaa quraac u keenay tani waxay sii kordhisay jahawareerkeeda Mika ayaa si toos ah u weydiisay inuu iyada jecel yahay iyo in kale iyadoo u sheegtay inaysan qorshaynayn inay xiriir jacayl gasho sanadaha soo socda